aad baan idin salaamay haddii aan ka warramo su'aashaad weydiisay ee ku saabsan xaaladda waddanka guud ahaan iyo gaar ahaaneedba xaaladda waddanka waxaan anu oran karaa 32 sano ee la soo dhaafay ee Soomaaliland jirtay maanta maalin ay ka liidato ma jirto sababtoo ah in maanta ay qaban karaan iska dhaaf gudoomiyaha golaha wakiilada ay xaq u leeyihiin inay madaxweynaha noqdaan si horena u soo noqdeen gobolada kale xitaa bariguna ay mataqaana sool iyo dadka soo jeeda ay xaq u leeyihiin inay madaxweynaha geeyaan marka haddii arintaasi ma qabno sababtoo aan u qabin waxa weeyaan waxaan aaminsanahay anagu qurbajoog hadaan nahay inaan waddanka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal wax badan gashanay sida caadiga ahna dhaqaalaha gobolkan Awdal uu ku socdaa waxa uu ka yimaada waa qurbaha weeyaan aqoonyahan Jamaal Daahir Shirdoon oo kamid ah qurbajoogta ka soo jeeda gobolka Awdal oo maanta si gaar ah u la hadlay telefishinka CBA ayaa ugu horreyn waxa uu istul taagay xaaladda guud ee dalku marayo waxaana uu aqoonyahanku ku tilmaamay aad baan idin salaamay marka hore mar labaad haddii aan ka warramo su'aashaad weydiisay ee ku saabsan xaaladda waddanka guud ahaan iyo gaar ahaaneedba xaaladda waddanka waxaan anu oran karaa 32 sano ee la soo dhaafay ee Soomaaliland jirtay maanta maalin ay ka liidato ma jirto sababtoo ah waxaan taa ku saleynayaa waxa jirtay inaynu 32 sanadood iibin jirnay kaliya laba qodob oo ku saabsanaa Soomaaliland nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda oo caalamkan aan ka iibin jirnay inaguna aynu dadkeena ahaan ku majiirin jirnay labadiina waxaad moodaa maanta inay meel aad ciriiriya galeen sababtoo ah gobolada bariga waxaad ogtihiin siiba magaalada Laascaanood inay ka socdaan dagaalo iyo nabadgelyadii oo xaggaas aad moodaa inay khalkhalsan tahay iyo beelo fara badan oo Soomaaliland dhexdeeda meelo ka badan iyaguna isku dhacay ta kalena waxaan u oran karaa xagga markay dimuqraadiyadda timaado waa qodobka ugu muhiimsan ee aynu iibin jirnay in qodobkaasi isaga laftigiisuna uu leeyahay maadaama doorashooyinkii aan la qabanin oo ay muran siyaasadeed ayna soo ragaadiyeen for the last dhowrkii sanad la soo dhaafay marka waxaan qabaa xaaladda waddanku maanta dhinaca dagaalada iyo dhinaca dimuqraadiyadda iyo dhinaca dhaqaalaha oo waddanka aad moodayso inuu sixir barar badan ka jiro oo dadkuna ay dhaqaale xumo ay maanta la liidanayaan intaas aan ku soo koobi lahaa in xaaladda waddanku maanta ku taagan yahay dib u dhaca ay keenayso dawladda Soomaaliland waxa kamid ah dhibaatada ugu weyn ee jirta ilaa aan laga heshiinin oo aan meel la isla dhigin waxa adkaanaysa in waddanku uu ka baxo muranka siyaasadeed taas weeyaan nabadgelyadana dagaalada aynu ognahay ka socdo gobolka Sool waxa uu keenay in dhaqaale burbur buu keenay naf badan baa ku dhimatay oo maal far badan Soomaaliland sumcadeedii dibaddana runtii aad iyo aad buu mataqaanaa ay u baabiyay marka dhinaca kale aqoonyahan Jamaal hadalkiisa waa uu sii watay waxa kale oo ka hadlay loolanka loogu jiro shirkadooda golaha wakiilada Soomaaliland waxaana uu sheegay inuu gobolka Awdal uu xaq u leeyahay inuu u tartamo shirkadooda golaha wakiilada Soomaaliland arinta waxaan u arkaa arin aad u qaldan ma arkaa sababta xaween Soomaaliland waa la wada leeyahay Soomaaliland waxa jirta si aad la socotaanba Soomaaliland beelaha darafyada iyo beelaha dhaxaba waxay Soomaaliland way wada leeyihiin waa wada sameysteen marka in la yiraahdo qayb kamid xaq uma laha waliba gaar ahaan reer Awdal xaq uma laha inuu tartan shirgudoonka arintaas waa gaf weyn oo dambi ku ah reer Awdal weeyaan arintaana aad baan anagu hadaan nahay qurbajoog aan uga dhiidinay sababta waxaan uga dhiidinay waxa weeyaan reer Awdal in maanta ay qaban karaan iska dhaaf gudoomiyaha golaha wakiilada ay xaq u leeyihiin inay madaxweynaha noqdaan si horena u soo noqdeen gobolada kale xitaa bariguna ay mataqaana sool iyo dadka soo jeeda ay xaq u leeyihiin inay madaxweynaha geeyaan marka haddii arintaasi lagu eedeeyo oo la yiraahdo ma qaban karayaan waxay noqonaysaa in Soomaaliland dad nacab oo cadow ku ah Soomaaliland inay kelmadaha noocaas isticmaalayaan soo doonayaan in kaliya ay meesha ku soo ururto oo beesha dhexe oo beerihii darafyadu ay waddanka ka kala tagaan sababta waan ognahay xaaladda maanta gobolka Sool in dadkii ka soo jeeday iyo siyaasiyiintii ugu waaweyn ay ka baxeen meesha ayna baneeyeen kursigan imka la isku haysto uu baneeyay dad ka soo jeeda gobolka Sool oo loo oran jiray ninkii Cabdirasaaq Khaliif marka haddii la yiraahdo kuwana uma qalmaan waxay noqonaysaa kaliya in niman beesha dhexe hadhowna u tartamaan meeshina ku soo ururta beesha dhexe marka arintaas anagu waxaan u aragnaa gaf weyn nimanka u tartamaya reer Awdal oo xubno u tartamaya labadaasi reer Awdal kii doonaba ha soo baxay arintu maanta gobol bay taagan tahay gobolkana anagu hadaan nahay reer Awdal oo waliba aqoonyahanadii aan nahay waxaan aaminsanahay gobolkaygu inuu xaq u leeyahay inuu noqdo shirgudoonka golaha wakiilada hadda loo tartamayo taasna aaminsan ugu dambeynna aqoonyahan Jamaal Daahir oo aan su'aalay bal waxa uu jawaabayo eed ay madax dhaqameedka gobolku ay u jeediyeen qurbajoogta oo ahayd in ay faraha kula jiraan khalkhal dhinaca amniga ah ayaa waxa uu si kooban ugu jawaabay eedaasi anagu ma qabno haddaan nahay qurbajoogta gobolka Awdal u dhashay
eedaasi ma qabno sababtoo aan aanu qabin waxa weeyaan waxaan aaminsanahay anagu qurbajoog hadaan nahay inaan wadanka Somaliland gaar ahaan gobolka Awdal wax badan gashanay sida caadiga ahna dhaqaalaha gobolkan Awdal uu ku socdaa waxa uu ka yimaada waa qurbaha weeyaan waliba waa qurbajoogtii u dhooftay dadkan deegaankan sida la socotaba gobolada kale Somaliland markay qurbajoogtu yimaadaan xitaa waa la soo dhaweeyaa oo xafladaha loo qabtaa oo waxa la dhiirigeliyaa si ay maalgashi u sameystaan halkana waxaad arkaysaa in odayaashii dhaqanka ahaa gobolka Awdal u dhashay hadii xaalad abuur ay ka bilaabanto gobolka Awdal ay qurbajoogtii ku eedeynayaan leeyihiin iyaga naqasaya taasina anagu waxaan inaanay qabanin sababtoo ah Somaliland iyo gaar ahaan gobolkan Awdalba dhaqaalaha kaliya ay ku tiirsan yihiinba waxa weeyaan waa lacagta laga soo diro dibadda weeyaan gaar ahaan tusaale ahaan jaamacadaha ardayda dhigato oo dhan qurbajoog baa lacagta soo bixisa dugsiyada hoose dhexe ilmaha yar markuu dugsiga hoose malcaamada gala ilaa dugsiga jaamacadda lacag baa la bixiyaa lacagta dadka deegaanku ma haystaan waxa kale oo aad ogtihiinba imika institutionada Somaliland gaar ahaan gobolka Awdal ka jira hoteelada ugu waaweyn ee maanta aynu gobolku leeyahayba ragga soo dhistay inay yihiin qurbajooga marka deegaankan Awdal markan ka hadalna gaar ahaan waxaan qabaa in la noo kala sheekeeyay annaga oo qurbajoogtii odayaashii dhaqankayga la isku kaayo dirayo oo isfahan waa halka yaala marka aniga Jamaal ahaan oo aan qurbajooga oo gobolkan u dhashay wax badan baan wadankan gashaday marka anigu waan ka xumahay in la igu eedeeyo inaan maanta qas wadankii ka wado mid kale aniga caruurtayda iyo reerkayga in la igu eedeeyo ilaa dibadda soo dhigteen iyadoo qofkii igu qaalisnaa noloshayda oo qurbajoog dadka ugu qaalisan yihiin waalidiinta oo aabii hooy halka noo joogaan oo dadka badankiisa ay halkan hooyadu kaana abu joogan hooyo u joogto in la nagu yiraahdo waa duminaysan inna ma duminaya meel ay hooyadii joogto oo qofkii ugu jeclaa noloshiisa marka odayaasha waxaan ugu baaqi lahaa si isfahanka iyagu uu hagaayo oo aan anaguna eeda isaga leexino inay odayaashu aan isugu nimaadno casho oo qurbajoog badan baa sanadkan timi wadanka inaan odayaasha aan casuuno kabacdina markaanu casuuno wada fariisano kabacdina aanu publica dood u badhigno oo ay reer Awdalna dhageystaan oo annaga odayaashu aan doodno oo xaaladda wadankan Somaliland in anagu dhibaato wadno iyo inaan wanaag wadno marka investment xitaa annaga hadii aanu sameyn lahayn oo qurbajoogtu ay dhaqaale soo gashan lahayd gobolkan Awdal waxyaabaha ku si niyad jabinaya waxa kamid ah marka odayaashaada ay ku yiraahdaan waan idin inkaarayna odaygu haduu ilinkiisa inkaarana waxa weeyaan waa nin ilmihiisii uu inkaarayo ilmaha cooy uu maartay uu dhalay bay noqonaysaa marka arintaas anigu waxaan ma qabno eedaasi Cabdirasaaq Umar Macadowliyo telefishinka CBA Boram